maanta shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay annaga oo aan cidinana dalban isxukunay ka tashanay aragnay waxqabadka ballaaran ee uu 6 degmo iyo gobolka ka fuliyay maayirada oo mutaystay inta ayeen ka badan buu mutaystay Maxamed Amiin Cumar Cabdi run ahaantii marka laga hadlo ee Ilaahay laga yaabo waxqabadkiisa cadceed sacab lagu ma qaran karo qofka yiraahdo Maxamed Amiin waxqabadkiisa dul marmaree isha ka laliya dawoonin intuu halka dariiqa istaagay yiri cadceedayda sacabkaygaas aba labadayda sacabaan cadceeda ku qarinaya kuma qarin karo mana qarsoomi karo qofka aan bila aadanka wax qabta uma hadnaqina Ilaahayna uma mahadnaqo dambina way ku tahay kuwa le waxba muu qaban anagu oran mayno noomu yeedin ismaanaan ogeyn Ilaahay bas naga sareeya waxaan anagu go'aansanay inaanu wax qabadkiisa haday tahay dhanka caafimaadka haday tahay maxaan ku dhahay dhanka waxbarashada haday tahay maxaan ku dhahay dhanka wadooyinka Maxamed Amiin intuu gabilay ka harharay ayuu gaaray 6 degmo wax qabadkiisa ee hoos imanayay gobolka gabilay maanta ka bilic wanaagsan amba ka wax qabad badan amba ka laamay qurux badan afarta haadee labana sida u socoto labana sida de dalka kuma yeelan madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ma hormaraan waxa weeyaan waxba cadceed sacab lagu qarin maayo gudoomiye waxaanu kugu ballan qaadaynaa oo nu daacad kaaga nahay waanu soomanahay waanu afxidhanahay beentuna waa xaraan inaanu ku taageersanahay dhinacaagana taaganahay insha Allah ta'ala hoo iyo hiilba ka xusbi ahaan waxaan iskugu nimid maayarkayga wanaagsan Maxamed Amiin inaanu mahad celino wax qabadkiisii ballaarneyd oo degmo iyo gobolba uu ka qabtay ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxa la wuxuu nooga baahdana waanu hooyo hilbo waanu hortaaganahay maayarkaana waan salaamayaa waana lu ducaynayaa insha Allah in Ilaahay mar labaad ku guuleeyo wax qabadkiisa horena waan aragnay shahaada sharaftana waxaan u sameeynaa anaga oo ururka midnimo waxaan ku rajaynaynaa inaan insha Allah garab taagnaano hilihooba anagu maayarka waxaan maanta shahaada sharafan gudoosinay wax qabadkiisu qabtay qabiilna uma dooran doono maantana hore si wadaan ku leenahay maayar halka ay halka fiican sii gaad waana ku ducaynaa hadaanu garabkii hadaan nahay dumarkii gobolka waan ku barbar taagana heeliyo hobaan kula barbar taagana waxaan yiri qofkan bilaadan uma hadnaqin Ilaahayna uma hadnaqo wali waxaan ku boorinaa aan ku rajaynaynaa insha Allah mar labaadna noo soo noqdo sida halka ay u taagan tahay hore uga sii wado maanta anagoo miirkayga iimaankiiba qabna anagoo dumarkii reer Gabiley maanta wanaaga Gabiley iyo quruxdeeda iyo qiimaheeda iyo waxtarkeeda iyo arrimaha bulshada qiimeynana waxaanu maanta u nimidnay maayar Maxamed Amiin Cumar Cabdi anagoo iskayga isku soo maamulnay anagoo oo ka soo shaqeynay oo wax badan soo aragnay inaanu ku maamusno maayarka wax qabadkiisii arrimaha bulshada quruxda magaalada caafimaadka waxbarashada dhimirka marka sidaasaan u garanay maayarka iyaga inaan ku maamusno wax qabadkiisii insha Allah maayar Amiin Cumar Cabdi waxaan u rajaynaynaa khayr badan hadnaqno maayarka degmada oo aad u qiimo badan noo soo jiidatay wax qabadkiisu haday tahay suu degmooyinka uga shaqeeyay gobolka hoos yimaada haday tahay degmada gudaheega haday tahay arrimaha bulshada maayar waxaan ku rajaynaynaa insha Allah bidmillaahi kariim inaad ugu soo noqoto oo wax qabadkaas sii wado إن شاء الله بإذن الله كريم waxaan halkan uga ducaynayaa maayar Amiin heeliyahooba oo la garab taaganahay soo noqon mar labaad baan maayar ku leenahay maxay ahayd shahaada sharafka guddoonsiinteeda soo aan siyaasadaysnayn oo anagu aan soo maamusnay isa soo xilqaanay cidi aanay noo yeelin isagoo aanuna dalban anagu aan maxay ahayd isku soo xilqaanay ayaan halkan ku guddoonsiinaa insha Allah waxaan leeyahay maayar Maxamed Amiin insha Allah ku soo noqon mar labaad waan ku ducaynaynaa heeliyahooda kula garab joognaa waxaan ku leenahay ku soo dhawow mar labaad Ilaahay iyo kugu guuleeyo assalaamu calaykum kan horta waxaan uga ducaynayaa maayarkayga
maxamed aamiin waxaan ku leeyahay insha allah waad guulaysanaysaa waananu ku barbar taagannahay hana u baqanin reer gabiley oo dhan baa kuu helan anaa ka koowa inta kuu helan